السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caalamkani aan ku noolnahay waxa inala noole yar oo ka kooban hal unug. Noolahaasi mar waxtar ayuu inoo leeyahay, marna khatar ayuu nolosheena ku yahay. waxaana dhici karto in nolosheena uu bagalaafto. Noolahaasi yar aan idin sheegayo waa bacteria ama jurthuma ayaa afka Carabiga lagu dhahaa. waxay ahayd sanadka 1673 markuu caalimka Antonio van Leeuwenhoek uu ku guuleystay inuu sameeyo microscope uu la egyahay awoodiisa waxweynaynta ama soo dhaweynta 270 oo lagu jibaar ah marka la fiiro microscope-yada oo waqtigaasi jiray. arrintaas uu ku guuleystay waxay u suurtagelisay inuu awood u yeesho waxyaabo faro badan inuu ku arko microscope-kiisa. ilaa ugu dambeyn waxay u suurtagelisay 1680 inuu soo iktishaafo noolaha yar ee lagu yeero bacteria. waa noole yar uusan qofka si caadi ah arki karin, waxayna ka kooban tahay hal unug. masaafada u dhaxaysana waa 0.5 ilaa 5 micrometer. sidoo kale halkii garam oo ciid ah waxay ka kooban tahay 40 milyan unug oo bacteria ah. waxaana xusid mudan waa noolaha ugu badan oo ku nool dhulkan ku noolnahay. bacteria waa qayb ka mid ah cilmiga microbiology oo afka Carabiga lagu dhaho axyaa daqiiqa. bakteeriyaasha dhexdooda waxa ka dhaxeeyo iskaashi, macnaha wada shaqeyn. maadaama aan soo dhahnay mid walba waxay ka kooban tahay hal unug, marka si shaqo badan u qabtaan ay isu kaashanayaan in unugyadooda midoobaan si ay u gaaraan ujeedo uusan gaari karin halka unug. wuxuuna jirka bini'aadamka ka kooban yahay unugyo bacteria ah oo ka badan 10 mar unugyadiisa aadamiga ah. waxaana suurtagal ah qaar ka mid ah bakteeriyada sida bakteeriyada E. coli oo afka Carabiga lagu yiraahdo alqolonia in ay noqoto masaafada ay jirayso halkii second in ka badan 25 laba jibaar dhirirkeeda. macnaha waa faras ordaya uu yahay xabaaruhu ku ordayo saacadii 217 kilomitir. waxyaabaha ugu yaabka badan oo la sheego ayaa ah in ay ka mid tahay noolaha ugu horeeya ee dhulka lagu arko. meel walbana way ku nooshahay hadda dhulka dhexdiisa. hadda sidoo kale bakteeriyada waxay ku nooshahay dhirta iyo xoolaha. hadda sidoo kale waxay ku nooshahay dayaxyada aanan dadka ku nooleen, iyo biyaha iyo maqaayadaha iyo musqulaha iyo kushiinka. sidoo kale lacagta, sababtaasna ayaa ah in lacagta ay dhowr gacan soo marto. 17 Maars sanadka 2013 waxay ahayd markii baariyaal ogaadeen bakteeriyada inay ku nooshahay godka Mariana oo ah meesha ugu hooseysa dhulka. marka hadda su'aasha maskaxdaada ku soo dhacayso ayaa ah, maadaama aan dhahnay waa noole, intee ayuu ka keenaa cuntadiisa? su'aashaasi jawaabteeda waxay u kala bixaysaa laba qayb. mid iyada ayaa samaysato oo isku tiirsan, iyo mid ku tiirsan qeyrkeeda. mid cuntadeeda samaysato oo isku tiirsan ayaa iyadana u qaybsamata laba qayb kale. mid cuntadeeda ka samaysata iftiinka, macnaha tamarta qoraxda, midna tamarta chemistry-ga. noolahani sidaan u yar wuxuu inoo leeyahay waxtar fara badan. waxaana ka mid ah waxay kaalmeynaysaa dheefmareynta si wanaagsan suu cuntada ugu taxliiliyo. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa in cuntada qaar ka mid ah cunno laga soo saaro sida zabaadiga iyo jubnada. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa in beeraha looga hortago cayayaanka dhibaateynayo, iyo sidoo kale in lagu suudiyo badaha haddii ku daadato naftada ama petroolka, iyo waxyaabo kale oo badan. maadaama aan ka soo hadalnay waxtarkeeda, waxaa waajib ah inaan ku sheego khasaaraha iyo khatarta ay leedahay bakteeriyada. waxay sabab u tahay cudurro fara badan oo ku dhaca bini'aadamka, ayna qaarna u dhintaan sida tuberculosis oo afka Carabiga loo yaqaan marada sul, ee Soomaalidan u yaqaanaan cudurka qaaxada ama TB-da, iyo az-zuhri anthrax waa cudur ku dhaca idaha iyo lo'da, iyo cudurro ku dhaca kaadihayska iyo dhuunta iyo caloosha, iyo sidoo kale ilkaha, iyo cholera daacun calooleedka. sidoo kale daraasad lagu faafiyay majalada Ameerikaanka ee ah AADR ayaa lagu sheegay in bakteeriyada ay door muhiim ka qaadato qofka inuu buurto ama cayilnaan uu yeeshto. ugu dambeyn waxaa xusid mudan in tirada bakteeriyada aan cudurka dhalin ay ka badan tahay mid aan faa'iidada lahayn. waxaan ku soo dhahay muuqaalkani bilowgiisa in bakteeriyada la iktishaafay sanadka 1673, laakiin haddaan quraanka ku tadabburno kuna noqono waxaa ogaanay sida uu u sifeynayo quraanka makhluuqaadkaasi. allahna ugu dhaaranayo makhluuqaadka arag karno iyo kuwa aanan arag karin ee nala degan bay'adani aan ku noolnahay. annagana aanan awood u lahayn inaan aragno makhluuqaadkaasi qaar, laakiin mustaqbalka aan ku arag karno allah qudradiisa. mana ahan cilmi dheeri ah anaga leenahay. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم
wuxuuna Allah siiyey insaanka caqli uu dheer yahay noolaha kale si wax badan u soo hindhiso uguna fakiro Allah makhluuqaadkiisa. Waxa qasaaray qofkii wadada saxda ka leexda.